Habeen wanaagsan saaxiibayaal sidaa u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Halkani waa barteena YouTube-ka aad kala socotaan casharada kala duwan sidoo kale saadaalinta shaxda 1xBet. Maanta barnaamijkan ama cashirkan waxaa uga hadli doonaa waa maxay quick events. Barnaamijkan quick events waxaa igu soo taageerayay dhowr mar barteena YouTube-ka saaxiib nagu qaali ah oo si toos ah barteena ugu xiran. Marka sidaan hore idinka ballan qaadan cashir kasto aad soo gudbisaan oo muhiimadiisa gaar kale ma aad fahamsanin waxaan ku qasbanahay inaan cashir aan ka soo duubno video ka soo duubno kadibna aan idin soo gudbino sida u fahantaan sidoo kale cashirada aan leenahay waa muhiim dhalinyarada inay fahmaan sidoo kale waan soo gudbin doonaa. Marka quick events halkuu ku jira sidiis marka quick events wuxuu ku jiraa qeybaha regular time-ka ilaa qeybaha dhexdaan meelaha corners-ka meelaha ka raadinaysa qeybtan kore kadib waa arkaysaa quick events waa kana quick events-na waxaa sidiisaba la helaa marka labada kooxood oo ciyaartooda bilaabanto ama seeriga lagu dhufto kadib ayay bilaabataa kadib ayaad helaysaa haddaba imisa ayuu kala baxaa. Quick events wuxuu kala baxaa 3 nooc sida u jeedaan nooca koowaad waa total in the interval 5 minutes sidoo kaleeto handicap interval 5 minutes sidoo kaleeto qaybta saddexaad waa 3 section sida hore idinku sheegay interval outcome 10 minutes. Marka saddexdan ayuu u kala baxaa waxaa ugu horeeya marka aan ku bilaabi doonaa si fiican waxaan jeclahay inaad ila socotaan ma ay dhageysataan total in the interval 5 minutes oo ah section 1 ama qaybta koowaad it is good for you waa inaad dhageysataa waa ku muhiim. Waxaa ugu horeeya qaybta bidix imaw in total in the interval 5 minutes oo ah over sida u jeedaan waxaa ugu horeeya over 0.5 from 5 minutes hadda way bedeleen aan dhahno 5 daqiiqo ilaa waa la gaaro moogtaa marka 0.5 from 10 minutes to 14 minutes ama 15 minutes ula jeedaan waa 14 ilaa dhibic ama 59 mirir ilbiriqsi loola jeeda oo ah 5 daqiiqa laga soo gaabshay oo because 59 60 ku dhacdaa soo maaha kadib isbedeshaa daqiiqadaha marka hadduu gool yimaado over hadduu gool yimaado ka bilow 10 daqiiqo hadda 5 daqiiqo ciyaarta ku dhowdahay inay ku dhacdo 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ciyaartaas haddii gool timaado ayaa labadan ciyaar isku baxaya labadan koox hadduu gool yimaado $6.22 saaran marka tusaale $100 dhigato $628 qaadato loola jeedaa taas waa ila fahantiin amalena sidoo kale haddaa taas hore fahamtan labaad fahmi doontaa waa isku mid sidoo kale over 0.5 goal ayaa imaanayo from laga bilaabo 15 minutes to 19 minutes ama 20 minutes iska dheh 20 daqiiqo waa 5 daqiiqo hadan inta u dhaxayso 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo 5 daqiiqo u dhaxayso hadduu gool yimaado waxaa saaran $6.22 qaybta saddexaad ugu dambeysa waa oo isla section-kan ah oo qaybta bidix jirto waa over 0.5 from 20 minutes to 24 ama 25 minutes oo loola jeedo gool ayaa imaanaya ka bilow saacadda markay tahay 20 daqiiqo ciyaarta markay socoto ilaa 25 daqiiqo hadduu gool yimaado $6.22 saaran qaybta bidix oo iyada dhigeeda aan aadno oo loola jeedo under 0.5 from 10 minutes to macnaha opposite ayay ku tahay lid ayay ku tahay waxaa loola jeedaa meesha ka tiri 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo gool imaanayo qaybtan ma imaanayo waa ma imaanayo 10 daqiiqo bilaab ilaa 15 daqiiqo gool ma imaanayo waxaa saaran 75 dhururuq sidoo kaleeto under 10 minutes under 0.5 gool ma imaanayo from 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo gool ma imaanayo haddaa dhahay sidoo kale 5 waxaa saaran 75 dhururuq 3 sidoo kale under 0.5 waa gool ma imaanayo 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo 75 dhururuq waa qaybta saddexaad kuwa section-ka koowaad oo kuu sheegay opposite-geeda ama dhigeeda oo kasoo horjeeda oo lid ku ah intaas u fahan waxaan galaynaa qaybta labaad oo ah handicap interval 5 minutes
oo loola jeedo sidoo kaleeto handicap waa goolasha laisku darsado. Handicapkan mar ayaa idoo sharaxaad ah cashirka soo sameeyay YouTube-ka ka heli kartaa. Haddana intan waa ku fahmaysaa, taasoo ah kooxdan koowaad sida u jeedaan 0.5 macnaha kooxda koowaad oo gooday ku qoran tahay 0.5 gool ayay la imaanaysaa 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo. Maxaan ku dhahay 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo kooxda koowaad gool ayay la imaanaysaa. Waxaa saaran $10.40. sidoo kaleeto wankaas kooxda laga wadaa. sidoo kaleeto 0 Mainsa ka hor Mainsaas kooxda markii iyada loo dirsanayo sidoo kaleeto waxaa lagu yiri 0.5 macnaha from ka bilow 15 daqiiqo to 20 daqiiqo waxay la imaanaysaa gool ayay la imaanaysaa ama kooxdan ama hal gool ayay ugu badinaysaa kooxda kale loola jeedaa. waa $10.30 saaran. sidoo kaleeto 0.5 from 10 minutes to 15 minutes macnaha gool ayay ugu badinaysaa kooxdan ama dhigeeda oo ku qoranta sheeg maxaan ku baragas ku qoran tahay. waxaa looga badinaa hal gool daqiiqadaha 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo $10.30. okay, qaybta labaad imow waxaa ku qoran to 0.5 from macnaha ogaada macnaha 0.5 kaas kan hore ama qaybta koowaad waxaa ku qoran Mainsa ka hor Everton Mainsa ka hor Mainsa kooxda markaa goolash u dirsanayso. tan kooxda ma qaybta labaad kooxdana loola jeeda Baragas loola jeeda Baragas gool ma looga badinayo 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo waaye. gool ma looga badinayo 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo ayaa loola jeedaa. gool ma looga badinayo. waxaa saaran $1.48. sidoo kale lambar 2 imaaw 0.5 kooxdan labaad oo Baragas ku qoran tahay from 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo iyadan waxaa lagu leeyahay gool ma looga badinayo 5 senti saaran. qaybta saddexaad oo ah kooxdan Baragas 20 daqiiqo ilaa anaga hore waxaan u dhahnay kooxda horeeto oo bidix jirto macnaha 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo hal gool ay ugu badinayaan dhahan kooxdan Soomaa ay ugu badinaysaa. laakiin markaan ugu badinayso waa ugu badinayso kooxda ma looga badinayo ilaa waxa la ciyaara waa laba koox oo kaliya saas u fahma. marka 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo waa qaybta saddexaad waa qaybta handicap intervalkan ku jirnaa qaybta saddexaad ma looga badinayo kooxdan kale Baragas 5 senti saaran. marka intaasina ay fahanteen rajayna waxaan galeynaa qaybta saddexaad oo ah interval outcome 10 minutes taasoo ah 10 daqiiqo ugu horeeya dhacdooyinka ka dhici kara ciyaartani. waxaa ugu horeeya qaybta koowaad imow oo bidix jirta ama goolay kooxda koowaad W1 waxaa loola jeedaa waa kooxda koowaad from ka bilow 15 minutes to 25 minutes hadday kooxdan 5 daqiiqo u dhaxayso 15 daqiiqo ka bilow ilaa 20 daqiiqo hadday badiso waxaa saaran $6.25. tusaale aan ku fahamsiiyo 15 daqiiqo markay ciyaarto 16 daqiiqo markay tahay tusaale hadday kooxdan gool dhaliso 19 daqiiqan hadday kooxdan kale ka bareejeyso loss waa. laakiin waxaa la rabaa kooxdan tusaale hadday gool 5 daqiiqo inay goolkaas iyada lahaato ee badiso laga rabaa. tusaale meesha 5 daqiiqo 3 gool ay tahay tan 2 gool ay dhaliso tan 1 gool ay dhaliso markasta farqiga goolasha la xisaaba hal gool waa inaad dheeraata oo ka badisa kooxda saas loola jeedaa. qaybta labaad imow waa W1 from 25 minutes to 34 daqiiqo soo ma jeedid waa 34 maxaan ku yiraahdaa ilaa 35 ilaa 25 minutes ilaa 35 daqiiqo hadday kooxdan ay badiso $6.18 saaran waa kooxda W1 ku qoran tahay. qaybta ugu dambeysa waa W1 from ka bilow 35 to 44 ama 45 minutes intaasna hadday kooxdan badiso waxaa saaran $6.36.
qaybta dhaxa u imaano oo ah x from 15 minutes to 25 minutes oo loola jeedo shanta daqiiqo x waxaa loola jeedaa bareeja loola jeedaa x1 kuma qorno x2 kuma qorno waa x kaliya haddaa aragto waxaa loola jeedaa bareejo labada dhinac waay marka labadan kooxood oo isku baxaya oo ciyaartooda hadda 12 daqiiqo sii socoto ka bilow 15 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo hadday bareejo ay ahaadaan ay wax gool iska dhalan $1.24 saaran intaas way la fahanteen x sidoo kale dheh from ka bilow 25 daqiiqo to 35 daqiiqo hadday ka bilow 25 daqiiqo markay saacadda ku dhaxdo ilaa 35 daqiiqo hadday bareejo ahaadaan waxaa saaran $1.24 sidoo kale qaybta ugu dambeysa waxaa waaye waa x ka bilow x from 35 to 45 minutes 35 to 45 aloola jeedaa waa 10 minutes u dhaxay soo ma 10 minutes u dhaxay soo ma intaas hadday iyagana bareejo ay ahaadaan 24 saaran okay marka qaybta ugu dambeysa galeynaa oo ah iyadana W2 ah W2 waa kooxda labaad oo ku qoranta isha Bragas ku qoranta loola jeedaa Bragas marka hadday badiso W2 hadday badiso 15 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo waa 10 daqiiqo hadday intaas badiso waxaa saaran $11.10 ayaa saaran waa ila fahanteen sidoo kaleeto kooxda Bragas ama kooxda labaad hadday badiso from ka bilow 15 daqiiqo ilaa 35 daqiiqo 25 daqiiqo haddaan dhahay ilaa 35 daqiiqo 10 minutes u hadday badiso waxaa saaran $11.10 tan ugu dambeysa waa kooxda labaad aan ku jirnaaye from ka bilow 35 daqiiqo to 45 minutes 35 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo hadday badiso waxaa saaran $11 oo just hadday bedeleen 20 sentiyad way bedeleen marka guud ahaan barnaamijkii ku saabsanaa quick events halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa saaxiibayaal youtube-kan idinka iskale shareta iyo laagta inuu keedara asxaabta u share garay si ay asxaab badan noogu imaadaan cashir kasta hada fahminne waxaan rajeynayaa inaad saan oo kale ugu soo jawaabi doono youtube-kan idin furan yahay aad baa mahadsantihiin soo dhawaada saaxiibayaal waa mahadsantihiin cashirkana markaan soo dhigay please markaad dhegeysato si fiican u fahamto waa fahmay soo haddaad fahmin ma fahmi soo waxaa igu balana haddaad fahmin inaan marka lagu soo celiyo waa mahadsantihiin saaxiibayaal